haddaba qaybteena koowaad ama xalqadeena koowaad ee barnaamijka waxaanu kaga hadli doonaa muxuu yahay psychology, muxuu si psychology qabtaa. marka ugu horeysa maskaxdaada aad ka fikirtid waxa ugu horeeya maskaxdaada ku soo dhaca waxa weeyaan inuu yahay ama wax lagu waasho ama fikrado badan oo khaldan oo bulshadeena ka dhex wareegta. laakiin waxaan isku daynaa in fiidiyoyaasheena taxanaha ah aynu fikradaha khaldan sidaynu beenin lahayn iyo waxyaabaha aynu ku beenin lahayn inaynu kaga wada sheekaysano barnaamijkan. marka ugu horeysa psychology-gu markii uu soo baxay waxa loo soo saaray laba kelmadood, labada kelmadood oo midna psych tahay midna logic tahay. marka ugu horeysa marka logic sidaynu naqaanaba waxa weeyaan waa study of oo yani logic weyn naqaana biology, physiology waxa soo dhan logic wala socota study of. kelmadda psych-na waxa laga soo qaatay kelmad Greek ah oo u taagan nafta. marka waxa la sameeyay qeexitaan ah psychology is the study of the soul. marka waxa lagu soo koobay inuu yahay psychology barashada nafta. laakiin markii dambe psychology waxa laga dhigay xubin science ah oo kamid ah science-yadan sida biology-ga, physiology-ga, medicine-ga waxaan oo dhan. marka waxa la yiri psychology waxa weeyaan science-ka behavior-ka iyo mental process-ka. marka waxay yiraahdeen psychology is the science of behavior and mental processes. marka waxay uga jeedaan inuu yahay psychology-gu science-ka ama waxa weeyaan cilmiga lagu baranayo hab dhaqanka qofka iyo sidii maskaxdiisu u process gareys ama sidii maskaxdiisu ay uga jawaab celiso hab dhaqankan uu qofkani sameynayo. psychology wuxuu isku dayaa inuu ka jawaabo su'aalaha sida why buu qofku qof kale u dilaa ama uu u geystaa dhib nafsaani ah ama uu sababi karayaa dhaawac jir ah. waxa kale oo isku dayaa inuu ka jawaabo waa maxay what is mental illness ama cudurrada maskaxda ku dhaca maxay yihiin, maxay u kala baxaan. psychology wuxuu isku dayaa inuu ogaado sidan ay maskaxdeena u shaqeyso, sidee maskaxdeena loo dhaawici karayaa, sidee loo daweyn karayaa. waxa kale oo falaqeeyaa why inagu aynu behave gareyna ama aynu ugu dhaqannaa sidan inagu dhaqanno. waayo imka su'aal oo kale waxa iman karaysa why baan anigu maanta halkan u soo fadhiistay san idinka sheekeeyo cilmi nafsiga. waa su'aal u baahan in laga jawaabo. marka psychology-ga ama cilmi nafsigu wuxuu isku dayaa why buu qofku hab dhaqankan uu sameynayo uu u sameeyaa. cilmiga psychology-ga culimada ka takhasustay waxay sheegaan inuu yahay mid kamid ah cilmiyada ugu qoto dheer ee adduunka ka jira, iyadoo ay sabab u tahay su'aalaha uu soo bandhigo, hababka uu isticmaalo iyo fikradaha kala duwan ee ku dhex jira. fikradahan kala duwan ee mar walba la soo bandhigo oo loo yaqaan school of thoughts waxay ka hadlaan human mind-ka ama behavior-ka qofkan dhinacee laga weeraraya ama dhinacee laga falaqeynaya, iyagoo loo qaybiyay markii ugu horeysay qayb loo yaqaan structuralism, functionalism iyo psychoanalysis. kadib saddexdaas ugu caansanaa, laakiin markii dambe waxa la soo saaray qaar kale oo kala duwan oo kaga wada hadli doono fiidiyoyada soo socda. cilmigan loo yaqaan cilmi nafsiga ninkii ugu horeeyay ee taabgareeyay ama ninkii ugu horeeyay soo bandhigay wuxuu ahaa William Wundt, isagoo oo furay laboratory-gii ugu horeeyay ee psychology. isaga iyo ardaygiisa ayaa waxay qaateen fikradaha dadkan chemists-ka iyo physicists-ka maadaama iyagu ay daraaseeyaan qaab dhismeedka ama structures-ka. waxay iyaguna soo bandhigeen why can we not do the same for the brain, maxaynu sidaas oo kale inaguna maskaxda ugu sameyn waayeen. waxay daraaseynayeen qaab dhismeedka mirqabka iyagoo isku dayaya inay patients-ka soo kaxeeyaan ay ka jawaabaan su'aalaha sida maxay dareemaan markay cadceedda daawanayaan ama qofkani muxuu dareemaa markuu coffee cabayo. waxay isku dayeen mar walba inay markaa introspection-ka ay focus gareeyaan, ay micnaheedu tahay markaa inay mar walba ay observe gareynayeen ama ay eegayeen sida qofkan emotional process-kiisa iyo mental process-kiisu iskugu xidhan yihiin. qaybtan markaa structuralism-ka loo yaqaano waxay focus gareyn jirtay isdhexgalka labadan shay, iyagoo markaa mar walba eegaya ama observe garanaya qofka afcaaltiisa iyo dareenkiisa iyo maskaxdiisa. laakiin may sii socon in badan waayo waqti badan laguma lumin karayo in mar walba qofkan la observe garayo. waxaa jira nin kale oo American philosopher iyo physician ahaa oo isagu soo propose gareeyay su'aalo ka duwan. magaciisu wuxuu ahaa William James. isaga wuxuu soo propose gareeyay ama waxa uu soo bandhigay su'aalaha sida why ama sabab baynu fikirnaa, u dareenaa ama u urinaa, isagoo focus garanaya function of behavior, why buu qofkani waxaan u sameynayaa. waxaa jira nin saddexaad oo lagu magacaabo inuu yahay ninka ugu caansan haddaynu ka hadlayno cilmi nafsiga.
isagoo ah ninka ugu badan ama kamid ah nimanka ugu badan ee wax badan kusoo kordhiyay psychology-ga ama topic walba psychology-ga lagaga hadlo ku dhex jira. magaciisu waxa weeyaan Sigmund Freud. Sigmund Freud wuxuu ahaa dhakhtar ama physician ku takhasusay nerve system-ka ama acsaabta qofka. Sigmund Freud markaa wuxuu daawaday inay asxaab ahaayeen oo Joseph Purell loo yaqaano mar uu daweynayay case caan ku ah barashada cilmi nafsiga oo loo yaqaano NO case. ninkan wuxuu isticmaalayay in qofkan intay soo hor fadhiistaan ay wada hadlaan kadib markasto ay ka hadasho cawaaqibta haysta ama symptomska inay qofkan xanuunkeedii uu reduce garoobayo. isagoo habka isticmaalaya Sigmund Freud waxa uu soo saaray wax loo yaqaano free association oo isagu uu patientskiisii ama dadkii u imanayay uu siiyay fursad ay free looga hadlaan waxa hayo oo dhan ama waxa maskaxdooda ku jira. book baa jira Sigmund Freud uu soo saaray oo loo yaqaano The Interpretation of Dreams. bookga Sigmund Freud wuxuu kaga hadlayaa in miir qabla'aanteena ama unconscious mindkeena waxaan kaga hadli doonaa fiidiyoyada soo socda insha Allah unconscious iyo conscious farqiga u dhaxeeya. marka bookgan The Interpretation of Dreams Sigmund Freud wuxuu ku sheegayaa in markasta personality-geena ama shakhsiyadeenu ay saameeyaan unconscious motives-keena ama waxa ku jira desire-keena khaaska ah inaan mar walba aware aynaynu ahayn. marka wuxuu soo saaray ninka Sigmund Freud in cudurrada maskaxda ku dhaca lagu daweyn karayo talk therapy oo ay tahay qofkani intuu si freely u soo fadhiisto uu ka hadlayo wixii dareemadii ama toomadii ku dhacday ama waxyaabaha xunxun ee noloshiisa uu soo maray uu repress gareynay ama uu hoos u cadaadinay. marka wuxuu sheegayaa in markasta qofku uu ka hadlo waxyaabaha ku dhacay inay symptomskiisi ama xanuunkiisi uu yaraanayo. qarnigii 20aad waxa la soo saaray qayb kale oo loo yaqaano behaviorism isagoo ay soo saareen nimanka loo yaqaano P.F. Skinner, Ivan Pavlov iyo John B. Watson. iyaguna waxay mar walba focus gareynayeen observable behavior ama habdhaqanka la arkayo. haddaba gunaanadkii waxaan ku soo koobinaa in fikradahan kala duwan markaynu isku geeno in cilmigani uu yahay cilmiga lagu baranayo habdhaqanka, dareenka iyo fikirka qofka. psychology-gu wuxuu weydiiyaa su'aalo interesting ah isagoo isku dayay inuu su'aalahan kaga jawaabo hab xog ururis ah. barnaamijkeenan baro cilmi nafsiga waxaanu kaga hadli doonaa waxyaabaha aynu kor ku soo sheegnay iyagoo faahfaahsan. la soco fiidiyoyada qaybtooda dambe.